waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. bismillaah waa mar labaad iyo barnaamijkeennii ka bara hawada oo aad kala socotaan tv-ga qaranka iyo raadiyo hargeysa. waa cabdiqaadir cali xuseen iyo maadadii fysigiska class form 2 chapter 4 iyo lessonkeenii labaad lesson 2 pageka aad kala socotaan physics form 2 page 89 89 ilaa 93 ayaad kala socon doontaan. cashirkii hore waxaynu ku soo qaadanay kan ka horreeyey oscillations ashyaada sameeya oscillationka oo real life example aynu soo qaadanay tusaale shiribeeriga ama baalkan leexada loo yaqaano ee ciidaha carruurta ku ciyaaraan. waxa kaloo ka mid ah kubad haddaad soo qaado xarig ka laalaadiso dabeenta qabato sii dayso ashyaada pendulumka sameeya ama walhado oo dhan dhammaan waxay sameeyaan oscillation. gitaarka ka mid aha waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen example of oscillations. waxa kale oo ku soo qaadanay oscillator materialisku ashyaada walhadka sameeyay common characters ay lahaayeen 3 common characters ay ka mid ahaayeen period, frequency iyo amplitude. waxaynu kala soo qaadanay examples ku saabsan oo lagu soo saarayo sida loo helo period of oscillation and the frequency of oscillation. mid walba qeexidiisina si fiican ayaynu uga soo warannay. cashirkeena maantuna wuxuu ku xigi doonaa kii hore. wuxuu ka hadli doonaa waxyaabaha ka mid ah ama waxyaabaha sameeya pendulum oscillationka waxa loo yaqaano ayaa ka mid ah. simple pendulumku waa maxay? simple pendulum can be made by hanging small bob of mass. simple pendulumku waa shay ka samaysan hanging small bob, wax yaroo culus ama shay maas leh oo bob la yidhaahdo oo la soo laadlaadiyey. suspended by a light extensible thread oo lagu xidhay dun yaroo dhuuban of a length oo dherer leh iyaduna fixed point oo ku xidhan meel. dun lagu xidhay shay culays leh oo bob la yidhaahdo dabeedna la soo laadlaadiyey ayaa waxaa loo yaqaanaa pendulum. kubad haddaad soo qaado shabageedii ku jirta dabeed xadhiggii dheeraa qabato meel soo sudho it is a pendulum. shay walba oo sidaa u samaysan waxaa loo yaqaanaa pendulum sidaad ka arkayso sawirka hoos kuugu yaalla. when the bob haddaba culayska ama shaygaasi maaska bobka bullet to one side haddaad dhinac u qabato and then release it dabeedna sii dayso it moves forward and backward. wuxuu u dhaqaaqi horay iyo gadaal. horay buu u dhaqaaqi gadaal buu usoo noqon oo siday oscillation buu samayn. saynu oscillationka ku soo baranay oscillationka waxaa lagu yaqaanaa shayga marka disturbing lagu sameeyo wuxuu sameeyaa forward and to and fro motion repeat itself. sidii oo kale ayuu samayn doonaa oo dabeed wuxuu samayn doonaa forward and backward. if the bob moves from A to B haddaba bobkaasi ama maaskaasi marka uu A ka tago ee B tago and back to A dabeedna uu A ku soo noqdo it makes one complete oscillation. waxaynu odhanaynaa waxa uu sameeyey one complete oscillation or one cycle. hal cycle oo dhammaystiran ayuu sameeyey ayaynu odhanaa. the period of simple pendulum haddaba ashyaada pendulumkaasi ama shaygaasi periodkiisa ilan period waxaynu naqaanaa iyadana inay tahay time taken for one complete oscillation. shaygii markaad qabatay
eed sii daysay uu dhaqaaqay from A to B buu tegey wuu soo noqday from back to A buu kusoo noqday one complete oscillation buu sameeyey timeka ay ku qaadanaysa haddaba this one complete oscillation cashirkeennii hore sidaynu kusoo aragnay maxaa lagu helaa pendulum kasta marka la soo saaray waxaa lagu helaa the period of simple pendulum oscillationku horta laba qodob buu ku xidhan yahay laba shay ayuu ku xidhan yahay oo markaynu cashirkii hore ka hadlaynay waxaynu soo qaadanaynay tiro wingis ah ama tiro oscillation ah oo loo qaybiyay timekii ay ku qaadatay imika laakiinse waxaynu qaadanaynaa markaan experiment la sameeyey waxaa la helay in uu period of simple pendulum ku xidhan yahay laba qodob labadaa qodob waxay keeneen the length of the pendulum duntan ama shayga lengthka shaygan lagu xidhaya bobka wanaga nidhi waa maas lagu xidhay xadhig ama dun lasoo laalaadiyay fixed position laga soo laalaadiyay the length of the pendulum kaasaa saameynaya the period increase with increasing the length of pendulum haddii lengthkaasi dherarkaasi bato periodku wuu badanayaa waxa kaloo saameyn ku leh the strength of gravity gravitygu isaguna saameyn ayuu ku leeyahay marka qaacidadaasaa la isticmaalaa haddaynu sawirkeennii dib u eegno pendulumku markuu A ka tago B tago oo dabeedna soo noqdo waxaa la complete oscillation periodkiisa waxa lagu soo saaraa baynu nidhi oo hore waxaynu usoo baranay number of wingis oo loo qaybiyay timeka now experiment ka bacdi waxaynu isticmaalnaa maxaa saameeya periodka maxaa saameeya periodka laba shay unbaa saameeya lengthka dherarka hadday dherarkaasi bato periodku badanaya hadduu dherarkaasi yaraado periodku wuu yaraanaya marka wuxuu leeyahay direct proportional periodka iyo lengthku waxay leeyihiin direct proportional strength of gravity isna la saameeya strength of gravity kuna isagu inverse proportional buu leeyahay periodka waxa lagu helaa in pendulum ama simple pendulum 2 times pi times radical L divided by G laba lagu dhuftay pi oo lagu sii dhuftay radicalka ay ku jiraan L oo loo qaybiyay G L iyo G oo la isku qaybiyay radicalka saaran where L ay la mid tahay length L waxay u taagan tahay the length of the thread G na is equal to gravity bay u taagan tahay the period of simple pendulum periodka simple pendulum does not depend on kuma xidhna isaga ma saameeyaan the amplitude and the mass of the bob iyo culayska meesha la surayo haddaynu sawirkeennii ku noqono pendulum waxaynu ku sheegnay waa shay maas leh oo lagu xidhay dun dabeedna laga soo laalaaday fixed position ayaa la yidhaahdaa dabeed periodkiisa waxa saameeya oo qodobkii maxaa inta muddada uu one complete oscillation samaynayo saameeya waxa loo yaqaan length markuu A ka tago B tago dabeedna uu B dib ugu soo noqdo wuxuu sameeyay baa la yiraahdaa one complete oscillation timeka ku qaatana period baa loo yaqaan periodkaasi hadaba inta muddadaas samaynayo laba qodob baa saameynaya kow mid waa gravity-ga ayuu noqonayaa ka labaadna wuxuu noqonayaa dherarkiisa imika tusaale haddaan ku kala sameeyo oo intaan shaygii soo qaado dun kale ku xidho oo lengaskeedii badiyo maxaad rajaynaysaa markaan sidaas sameeyo way ka dheer tahay dherar lengthkan uu ka dheeray dabeed waxa halkaa aan filanaa ama aynu arkaynaa in uu badan doono periodka hadduu kan ku qaatay example tusaale ahaan 1 second hadduu ku qaatay kan wuxuu ku qaadan doonaa 2 second saa darteed dherarku wuxuu ka qayb qaataa the period of simple pendulum waxa kale oo ka qayb qaata baynu gravity-ga laakiin si laba shay ma saameeyaan oo iyagu meesha ka muuqda labada shay waxay keeneen the mass shaygan meesha ku xidhan culayskiisa haddaad shay yar ku xidho iyo haddaad ku weyn ku xidho waa isku mid wax saameyna kuma yeelanayaan the period of the pendulum waxa kale oo saameynin waxa loo yaqaan amplitude waa inaga soo aragnay waa the maximum displacement ama waa the height from the resting position inta uu resting position kor uga kacay cashirkan ka horeeyay haddii halkaasi tahay resting position inta uu shaygaasi ama markii la jiiday babka inta uu kor uga istaagay it is resting position ayaa waxa loo yaqaanaa amplitude oo marka release gareynayo babkaasi haddaan in yar soo qabto iyo haddaan halkaa keeno example sawirka haddaan kor u soo jiido halkaa geeyo
dee isbedeli doonaa dherarkani halkaa iyo halkaasi dherarkaasi isbedeli doonaa amplitude-kiina wuu isbedelaya isbedelka amplitude-ku ma saameeyo the period of pendulum wax saameyna kuma yeesho marka laba period-ka waxaa saameyn ku yeesha only length and gravity period-ku direct proportional buu leeyahay the length of the street oo hadduu increase garoobo length-ku the period increase period-kuna wuu increase garoobaya laakiinse labadani way ka madax bannaan yihiin independent weeyaan wuu ka madax bannaan yahay wax loo yaqaano maaska iyo amplitude-ka haddaynu cashirkeennii ku laabanno tusaale haddaynu soo qaadanno example simple pendulum with a mass of 5 kilogram is 4 meter long and has amplitude of 10 centimeter take G 10 Newton per kilogram simple pendulum leh simple pendulum culayskiisu yahay ama maaska ku xidhan uu yahay 5 kilogram ayaa waxa laga laadlaadiyay shay dherarkiisu yahay 40 meter long and has amplitude dabeed waxa la sameeyay waa la soo jiiday waa kor baa loo soo qabtay amplitude buu sameynaya this rest position uu ka soo dhaqaqay amplitude kala dhaqaajina waa 10 centimeter take G waxaad u qaataa gravity-gu waa constant isagu isma bedelo 10 Newton per kilogram G-da u qaado dabeed calculate waxaad xisaabisaa the period of the oscillation period ama time-ka uu sameynayo ay ku qaadanayso one oscillation inuu sameeyo iyo the frequency of the oscillation frequency of oscillation labadaas soo saar inagoo isticmaalayna qaacidadeennii aynu kor ku soo barannay period-ku wuxuu leeyahay 2 pi times radical n divided by G ayaynu soo saaranaa period of this oscillation period-ka waxaa lagu helaa 2 times pi times radical n divided by G pi waa constant waxay leegtahay 3.14 L-na waxay noo leegtahay 40 G-na waxay noo leegtahay 10 Newton per kilogram saa darteed ma isticmaalayno amplitude because the amplitude is independent wuu ka madax bannaan yahay period of the oscillation 2 times pi 2 times 3.14 waxaad ku dhufataa 3.14 2 ku dhufo dabeedna waxaad kusii dhufataa radicalka ay ku jiraan 40 meter divided by 10 Newton is equal to 6.28 times 2 intaasi waxay kula sii mid tahay 40 divided by 10 waa 4 xididka ka saar waa 2 waxaad ku dhufataa 2 lagu dhuftay 3.14 oo u dhiganta 6.28 dabeed intaa markaas ku dhufata waxay ku leekaan doontaa 12.56 second frequency-geenana seenu helanaa frequency isagana waxaa lagu helaa 1 divided by period oo simply reciprocal bay isku ahaayeen rogaal bay isku ahaayeen frequency-ga iyo period-ka saa darteed frequency wuxuu la mid yahay 1 divided by period-keennii aan haysanay baan 1 u qaybinanaa period-kaaga imisuu kula mid ahaa wuxuu kula mid ahaa 12.56 1 divided by 12.56 na wuxuu la mid yahay 0.079 haddaynu example-kaa soo saarno sabuuradda haddaynu ku soo saarno example 1 waxayna la weydiiyey the period and frequency soo saar baa lagu yidhi period-ka uu yeelanayo simple pendulum maaskiisu yahay 4 kilogram lagu xidhay dherer 40 meter ah G-na waxaad u qaataa 10 Newton per kilogram maxaan ku helnaa period-ka waxaynu ku helanaa qaacidadeennii baynu qaadananaa waxaa lagu helaa period-ka 2 times pi times radical L divided by G waynu haysanaa the length of thread and the gravity bayna waa constant oo waxay leegtahay 3.14 ku bedelo mid walba lambarkiisa period-ka waxaa lagu helaa 2 times 3.14 times oo lagu dhuftay radicalka ay ku jiraan L imisay noo leekayd the length 40 meter divided by 10 Newton per kilogram the gravity 10 Newton per kilogram 2 times 3
kala horreysida xisaabta labadan horta isku dhufo kuwana isku soo qaybi dabeedna radicalka ka soo saar 2 times 3.14 waxay noo leeg tahay 6.28 labadanna isku qaybi radicalka ku jira 40 divided by 10 waa 4 unitkiina isku bedel waa decimeter halkan meter baa yaala halkanna waxaa yaala newton per kilogram kuwa marka la isku qaybiyo waxa isla soo hara waxa loo yaqaan second square ayaa soo haray sababtoo ah newton wuxuu leeyahay kilogram meter per second square kilogram iyo kilogram way ka bixi waxa ku soo haray meter square sanay noqonaysaa meter loo qaybiyay newton loo sii qaybiyay kilogram haddii unitka in yar ku yar fahansiiyo dabeet intaas waxay ku leeyahay meter loo qaybiyay newton baynu bedelanaa newton wuxuu leeyahay jiray baan nidhi kilogram meter per second square divided by kilogram way isla baxayaan maadaama ay soo yaalaan meter iyo meterna way isku qaybsamayaan iyaga laftirkoogu way isla baxayaan meesha waxaa kugu soo haraya second square saa darteed waxay intaasi ku leeg tahay 4 second square xididka ka saar 4 second square xididka ka saar intaas waxay kula mid tahay 6.28 xididka marka laga saaro 4 waa 2 second square-na square-ka ka saaraya waa second 2 second labada isku dhufo waa 12.56 second is a period waa time interval siisoo kale waxa lagu cabiraa second baa lagu cabiraa bida iyadana waxaa soo saarayna frequency-ga isaga simply waa reciprocal of period waxaad lagu helaa f waxay la mid tahay 1 divided by t deenu waxaan u qaybinaynaa 1 intaas waxay kula mid tahay 1 divided by 12.56 1 divided by 12.56 isku qaybi labada waa 0.076 hertz frequency-geenu wuxuu noo leeyahay 0.076 hertz saasaa loo soo saaraa the period of simple pendulum midda kale frequency-ga iyo kan kolba kii kuu horeeya markaad soo saarto ka kalena waad soo saaraysaa keliya waxa muhiima uun inaad ku horeyso xisaabtu say u kala horeynayso wixii recovery kaala iyo labadana isku dhufanaysaa dabeedna marka labada isku dhufato kuwana intaad isku qaybiso ayaad xididka ka saaraysaa wixii kuu soo baxa ayaad isku dhufanaysaa dabeedna intaasay ku leekaanaysaa qaybteena labaad waa spring oscillation qaybta labaad ee cashirka waa spring oscillation haddaynu halkaa ka nimaadno simple pendulum waxa kaloo kamid ah ashyaada oscillation-ka samaysa spring baa kamid ah spring waxaa la yidhahdaa gariiratada waa taqaan baashan gariiratada la yidhaahdo waxyaabo badan baa loo isticmaalaa for1na si fiican baad ugu soo barateen the figure 4.2 shows sawirka hoos inooga muuqda waa sawirkaasi wuxuu ina tusayaa sawirkaasi haddaynu soo qaadano hoos inooga muuqda waa springkaasi maas haddii la suro dabadeedna hoos loo jiido marka hoos loo jiido la sii daayo wuxuu samayn doonaa waxa loo yaqaano movement ama oscillation buu samaynayaa up and down rest positionkiisii buu dhaafayaa kor buu u ururaya marka springka la jiido waxaa la siinaya waxa loo yaqaano elastic potential energy waxay u saamaxaysaa springka inuu dhaqaaqo uu kor u dhaqaaqo dabeedna energygaasi kor buu u dhaqaajinaya kor markuu u dhaqaaqo uu isku ururaya markuu isku ururo iyadana elastic maxaadana wuxuu sameynaya kinetic energy kor buu ururaya kinetic energy-gii wuxuu isku bedelayaa haddana potential energy gravitational potential energy kor markuu ururo gravitational potential energy-gaasi mass baa ku xidhan wuxuu isna u sahlayaa inuu haddana hoos u soo noqdo dabeed maantoo dhan buu ku ciyaaraya springkii up and down oscillation wuxuu sameynayaa loo yaqaano up and down a mass on a spring culayska ku xidhan springa rest in equilibrium position wuxuu joogaa meel equilibrium position buu joogaa iska negi yahay when a mass on the lower end of the spiral spring is pulled down
haddii culayskii hoos haddaba loo jiido energy is stored in the stretching spring energy baa ku kaydsamaya oo elastic energy ah ayaa ku kaydsamaya springkii la kala jiiday when released haddaba marka la sii daayo energygii ku kaydsamay maaska wuxuu bilaabayaa springka ku kaydsamay wuxuu bilaabayaa start to move upward inuu kor u dhaqaaqo accelerated by the force of the spring isagoo ku karaaraya ama ku ordaya maxaa awooddii springka la siiyey ee stretching elasticity awooddii elasticity-ga ee kala jiididda isagoo ku dhaqaaqaya ayuu kor u baxayaa dabadeed hoos buu soo dhacay it shoots past the rest position wuxuu dhaafayaa meeshii rest positionkii start to compress the spring wuxuu bilaabayaa inuu isku ururiyo springkii the compressed spring gives compressedkaasina awood buu siinaya awooddaasina iyadna waxay u sahlaysaa to force downward inuu hoos u dhaqaaqo this force slow the mass down still just until it just stop dabadeed awooddaasi saan buu u ciyaaraya springkaasi up and down ilaa uu ka istaagayo the motion keeps repeating itself socodkana uu ku celcelinayaa itself uu ku celcelinayaa repeats itself haddaynu tusaale soo qaadan haddaba springkaasi sawirka saad ka arkayso increasing the mass haddaba springka isla laba qodob baa saameeya oscillation periodkiisa maaskaa saameeya iyo waxa loo yaqaan spring constant springkani waxa uu ka samaysan yahay laftiisu aynu halka arki doono increasing the masska haddaba marka la kordhiyo increase the periodka kordhi doono so the mass has effect on the period of the spring oscillation waxa ugu muhiimsan ee periodka saameeya springkana waa masska qaacidadana waa la isticmaalaa period waxa lagu helaa 2 times by times radical m divided by k laba lagu dhuftay by oo lagu sii dhuftay m oo loo qaybiyay k oo radicalka ku jira xididka ku jira where xagga k waxay u taagan tahay spring constant waxaynu ku soo qaadanay form 1 waxaana lagu helaa waxay ka timiday force divided by mass awoodda la surayo springka oo loo qaybiyay masska dabeed waxaa lagu helaa marka waxa unitkeedu noqonaya newton per kilogram mna mass bay u taagan tahay labada qodob ayaa saameeya spring constantka iyo waxa loo yaqaano masska saameeya tusaale calculate the period and frequency of a simple harmonic motion for spring loaded with muxuu noqonayaa periodka iyo frequency-ka uu samaynayo harmonic motionka uu samaynayo spring laga lulay ama la suray culays 4 kilogram where xagga spring constantkuna yahay 10 newton per meter spring constantka springkeenani waa 10 newton way kala duwan yihiin springnadu waxyaabo badan baana saameyn jiray stiffness-ka saameyn jiray sidaa darteed spring uu yahay 10 newton per meter keediisu la surayna culays 4 kilogram muxuu noqonayaa waxa loo yaqaano periodkiisu dabeed periodka waxa lagu helaa 2 by oo lagu dhuftay masska oo loo qaybiyay constantka qaacidadii ma isticmaalana mid walba ku bedelo 2 times by radical 4 kilogram oo masskeeniya oo loo qaybiyay 10 newton per meter oo ah spring constantkii labada isku soo qaybi radicalka saaran marka la isku qaybiyo waxay noqon doonaan 0.4 2 times by waa 3.14 times 2 waxay u dhigantaa 6.28 dabeed xididka ka saar 0.4 xididka marka laga saaro waa 0.632 ku dhufo 6.28 waxay noqon doontaa 3.79 frequency-gana isagana sidii aynu example-kii hore kusoo aragnay waa rogaalka period dabeed periodkeena waa 3.97 ama 7 second 1 divided by 3.97 isku qaybi labada wuxuu ku noqon doonaa frequency-gaagina 0.25 example-kaasi haddaynu isna soo qaadano soo kooban aynu calculate garayno example-ka labaad isaguna waa spring oscillation-kii buu ka hadlayaa spring oscillation waxaa lagu weydiiyey spring oscillation periodkiisa iyo frequency-giisa haddii la suro springkaasi baa lagu yidhi 4 kilogram mass ah constantkiisuna yahay 10 newton meter muxuu noqon doonaa periodkiisu soo la saar frequency-ga haddaynu ku horeyno periodka maxaa lagu helaa periodka waxaa lagu helaa 2 by radical m divided by k 2 times 3.14 by is a constant times radical masskeena wuxuu ahaa 4 kilogram divided by k-deenina waa 2 newton per kilogram
dabadeed labadana isku dhufo labadana isku qaybiyo xididka ka saar labada marka la isku dhufto waxay noqon doonaa 6.28 times labadan isku qaybi 4 divided by 10 waa 0.4 radicalkay ku jiraan 0.4 radicalka ku jira weli unitkana waa sida kii hore aynu ka soo hadalnay kuwan marka la isku qaybiyo labada kilogram way isla bixi doonaan waxa ku soo bixi doonaan second square baa ku soo hari doona dabeedna markaad xidid ka saarto square-ka ka saari doona second baa kugu soo haraya 0.4 na marka xididka laga saaro waxa iyaduna noqon doontaa 6.28 times xidid ka saar 0.4 waa 0.632 isku dhufo labada marka la isku dhuftana waxay ku noqon doontaa asarka aan soo saaranay inta labada marka isku dhufato asarka ku soo bixi doona frequency-gana waxaad ku heli rogaalka period-ka oo sidii example-keenii hore baad samayn doontaa intaasi asarka ku soo baxa ayaa waxaad u qaybin doontaa 1 waxa ku soo baxa marka wuxuu noqon doonaa frequency-gaaga intaynu ku kulmayno cashirka xiga waxaynu inaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno